adiga haddaad in lagu shaqeeyo waa inaad wax ku baxsato dowladdaas. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay 8 February 2017 wuxuu la soo baxay waji ka duwan kii la filayay. wuxuu markiiba bilaabay dagaal ka dhan ah beelaha qaarkood iyadoo la bartilmaameedsanayo siyaasiyiinta saameynta leh ganacsatada iyo indhergaradka bulshada. wuxuu dagaalkiisii ka bilaabay Jowhar August 2017 wuxuu xilka ka tuuray madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble wuxuuna damacsanaa inuu ku bedelo siyaasi ka amar qaato xafiiska Farmaajo oo aan fulinayn danaha bulshada iyo deegaanka uu matalo. marka Cali la riday dawladdu inay dareynayso in qof kale meesha madaxweyne ka noqdo waan aniga ahayn waxaa ku xigay weerarkii December 2017 uu ku qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Cabdiraxmaan ayaa la sheegaa inuu beeshiisa ka diiday inay difaacdo wuxuuna go'aansaday inuu dacwad ku furo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maaha maxkamadaha dalka kaliya dastuurka ii saamaxaya inaan maxkamadaha caalamiga ka dacweeyo. horaantii sanadkii 2018 wuxuu Farmaajo xilka ka qaaday Thabit Cabdi Maxamed gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo Duqii Muqdisho. Thabit ayaa la sheegaa inuu isu arkayay inuu isagu dhisay madaxweynaha xaqna u leeyahay inuu bulshada gobolka Banaadir u sameeyo dawlad goboleed iyo matalaad ay mudan yihiin. laakiin Farmaajo ayaa ku weeraray ciidamada qalabka sida waxaana xilkii xoog looga qaaday Thabit Cabdi. shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka Banaadir degan waxaa naga wada saaran waajib damiiri ah oo Soomaalinimo. Farmaajo wuxuu sii waday qorshihiisii xigay ee beegsiga beela gaar ah wuxuuna Maxamed Xaashi Carabay oo qaraabo la ah loo adeegsaday burburinta maamulka Galmudug. markii ay heshiiyeen hogaankii Galmudug iyo maamulka Ahlu Sunna wuxuu Farmaajo bilaabay inuu khilaaf ka dhex abuuro beelaha deegaanka iyo hogaanka sare ee Galmudug waxayna taasi ku soo biishubatay in rasaas lala dhaco maamulka Ahlu Sunna. waxaa la sheegaa in Farmaajo buugiisa jaamacadda ugu gafay beelaha ka soo jeeda Baay Bakool lama yaqaan cadawtooyada soo jireenka halkuu kala qaaday laakiin wuxuu Farmaajo ku qasbay madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan inuu iscasilo. intaas uga maharin Farmaajo reer Koonfur Galbeed wuxuu xabsiga dhigay Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur wuxuuna dilay 15 ruux oo xildhibaan deegaanka uu ku jiro. wuxuuna kursi dhiig ku fariisiyay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo xidid iyo reer Abtillaah Farmaajo. reer Koonfur Galbeed waxay hore u ogaayeen takanadii laga galay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo xilkii gudoomiyaha baarlamaanka looga qaaday qaab sharci darro ah ninkii lagu bedelay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan laga dhigay hayin kadib markii korontadii biyaha laga jaray mar uu qabtay mooshin laga keenay Farmaajo. August 2019 waxaa Muqdisho lagu aasay Allah u naxariistay Duqii Muqdisho iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow. ilaa hadda ma jirto xog rasmi ah oo la soo bandhigay oo la xiriirta dilka gudoomiyaha waxaana lagu bedelay Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish oo ka mid ah hogaamiye kooxyadii dalka soo maray. waana mid ka mid ah dadka aaminsan inuu xilkiisa ku xiran yahay intuu xafiiska joogo Farmaajo. markii uu Farmaajo burburiyay maamulada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Banaadir wuxuu bilaabay inuu dawlad goboleed gaar ah u sameeyo gobolka Gado oo beeshiisa deegaan ahaan u badan tahay. arrintaas waxaa ka hor yimid siyaasiyiinta u soo joogay dhibaatada qabiilka ee la socda wixii laga soo maray qabyaaladii iyo nacaybkii uu abuuray hogaankii kacaanka ee xoogga ku haystay talada Soomaaliya. wuxuu haleynahay madaxweynaha asaga gooni ku tahay ummadda uu ka soo jeedo oo reer hebel la leeyahayna bari bay ka tahay ummadda Soomaaliyeed ba wax la qabsanaynaa. Farmaajo wuxuu aaminsan yahay siyaasad reerkiisa oo kaliya ka dhigaysa boqorro inta kalena ka dhigaysa raaciyo ay iyagu maamulaan. tusaale wuxuu diyaarad ku soo galbiyay kana soo dejiyay caasimadda Muqdisho Cabdirasiid Janan oo markii uu la shaqeynayay dawlad goboleedka Jubbaland loo heystay inuu yahay baxsad dambiile ah oo magaciisa loo gudbiyay booliska caalamiga Interpol. hase ahaatee markii uu la heshiiyay Farmaajo ay qaraabo yihiin waxaa loo aqoonsaday halyeey qaran. qabiilkiisa uu adeegsado waxaa markaas ilaa magaalada Muqdisho jooga odayaal mareexaan ah oo hoteelada degan oo la leeyahay Jubbaland waxa ku dhisaysan Gado. Farmaajo wuxuu beelaha Soomaaliyeed ka soo xushay dad haadhihi yaqaan dantooda ku caqli ah oo aan ogeyn inay matalaad ku joogaan xafiisyada dawladda. dadkaas waxaa ka mid ah Maxamed Xuseen Rooble oo loo garan og yahay Lehelow. haddaba Farmaajo ma hogaamiye qabiil baa mise waa madaxweyne Soomaaliyeed?